السلام عليكم أصحابتي qaaliga dhamaantiin kusoo dhawaada cooking with sacaad hada channelkay ku xasibtidna please subscribe ka dhinaysana gambalelka yar ku yaala reex mar walba video aan soo galisay dhaqsaad u heshiin soo asxaabta maanta waxaan sameysanayaa quraac aad u sahlan marka sidaan u sameynaa ayaan jeclaaday inaan idin tuso quraacada daawasho wacan soo hada saxankan waxa igu jira laba xabo baradho aan biyo aan ku soo kariyay soo baradhaha biseel waaye kadibna waxaan sameynayaa waxaan soo qaadayaa birtaas oo wax lagu hoolo yaanyada marka birtaas ayaan ku hoolay dhinacan ku hoolaan waa dhinacaad u yar yahay marka sidaas ayaan u hoolay asxaabta birtii adiga sid ku hool laazima bir noocan ku isticmaashid ay bir adiga sid ay ku hooli kartaa baradhaha soo asxaabteeda qaaliga sidaas ayaan ku wadayaa waa si hoolay baradhaha markaan dhameeyay kadib insha Allah waxyaabaha kale aan ku dari doonaa ayaan idin waan dhameeyay asxaabta baradhaha sidaas ayaan u holay diyaar waaye soo hadda waxaan ku darayaa nus bakeeri oo garam flour ayaan ku darayaa garam flour asxaabta waxa waa burka jaalaha marka burkan waxaad ka helaysaa supermarket-ka ama ay dukaan oo raashin la gado aad ka helaysaa garam flour dhahdid bacda kaas ayaa ku qoran yahay ama supermarket-ka ayaa ka helaysaa soo nus bakeeri ayaan ku daray baradhada dhexdeeda garam flour-ka kadibna waxay biyo ayaan ku qasay biyo badan ma ku qasay because baradhaha biyo ayuu dhalayaa marka biyo badan aad ku dartid zaid biyo ayuu noqonaa sidaas darteed biyo badan ma ugu darayo marka sidaas ayaan u jilciyay kadibna hadda waxaan ku darayaa 3 qaado oo uraangaha midka xalwaha lagu daro waa burkaas ayaan ku daray 3 qaado oo uraangahaas ayaan ku daray kadibna si fiican ayaan u qasayaa hadda soo arkaysin asxaabta biyo ma aha sidaas ayaa la rabaa kadibna hadda waxaan ku darayaa hal xabo oo yaanyo aan si yar aan soo jarjaray ayaan ku daray kadibna waxaan ku darayaa hal xabo basal si yar aan soo jarjaray andeen hadda waxaan ku darayaa nus barbarooni aan si yar aan soo jarjaray kadibna laba xabo basbaas cagaar aan soo jarjaray ayaan ku daray basbaas hada cunin asxaabta laazima inaa ku darsid basbaaska iska dhaafi kartaa kadib waxaan ku darayaa nus qaado oo chili flakes basbaaska gaduudka oo la soo jajabiyay waxaan ku daraa nus qaado oo dhania powder midka diyaarka andeen waxaan ku darayaa cusbana qiyaaska ku darso kadibna waxaan ku darayaa nus qaado oo huruud marka intaas ayaan isku daray asxaabta soo hadda waxaan sameynayaa si fiican aan isku qasayo waxyaabahaas dhan aan isku daray diyaar asxaabta sidaas ayaan u qasay biyana ma aha zaid waa arkaysiin wala zaid ma biyo zaid ma marka sidaas ayaa la rabaa in laga dhigo marka diyaar waan sii dubayaa taawada ayaan dabka saaray markii taawada ay kulaato wax yarne saliid ayaa sidaas u marinaa darabta subag ayaa mari kartaa darabtidna saliid marka saliid wax yar ayaan sidaas u mariyo kadibna hal qaado ayaan soo qaadayaa burkii aan soo qasnay baradhaha sidaas ayaa taawada dhexdeeda ugu shubayaa qiyaas ayaan ka dhigayaa zaid ma u weyneenayo hadda rabtid asigoo weynaha sameysan kartaa marka aniga sidaan ayuu ku qurxoon yahay qiyaaskan markuu yahay soo asxaabta xabadaan sidaas ayaan u dabay marka waan sii sugaa wax yar ilaa hoos oo ay ka gaduudato marka hadda hoos diyaar waa wax yar kor ayaan saliid marinayaa korna waa arkaysin qaleel markuu noqdo ayaa saliid korkiisa mariyo wax yar marka hadda waan sii gadinaa dhinaca kale ayaan u gadinayaa waa ka asxaabta arkaysin dhinaca hoos sidaas ayuu u gaduutay maasha Allah soo hadda dhinaca kale ayaan sii sugayaa asigana inuu bislaado maasha Allah asxaabta arkaysin dhinaca kale waan sii gadiyay marka dhinaca hoos wax yar ayaan rabaa inaan sii gaduudiyo soo dhinaca hoosna sidaas ayaan ugu celinayaa wax yar aan u gaduudiyo marka asxaabta maasha Allah waa arkaysin quraacada maanta oo aad u sahlan recipe-ga aan sameeyay
soo xabadan diyaar waa marka saxanka ayaan sii saarayaa. Hadda qaybtii labaad ayaan sii dubayaa, wax yar saliid ayaan taawada sii marinayaa. Kadibna waan sii dubayaa inta ii dhiman. Marka saxaabta marka hore hal xabo ayaan ku shubay taawada, marka hadda laba xabo ayaan ku shubayaa. Adiga intaa rabtid ayaa ku dubi kartaa, haddaa rabtid qiyaas yar inaad ka dhigtid. Marka taawada intaa qaadanaysa ayaa ku xiran. Marka aniga laba xabo ayaa hadda tookadan ayaan sameynayaa. Haddaa rabtid saddex xataa waa sameysan kartaa, afar xataa hal mar ayaa sameysan kartaa. Laakiin taawadaada inuu nafas lahaado waaye, marka taawada aad ku dubanaysa ayaa ku xiran. Marka labadaas xabo kale ayaa sidaas ugu shubay. Inshallah asxaabta I hope inaad ka hesheen recipe-gan easy-ga maanta quraacada aan sameeyay. Hadda video-gan quraacada maanta sidaan u sameeyay aad ka hesheen. Please like isaar video-gan si share gareysii walaalaha kale oo arkaan ka faa'iidaan. Hadda channel-kayga ku cusubtidna please kusoo dhawaad subscribe saar. Subscribe-ka dhinaciisana gambaleelka yar ku yaala riix mar walba video-gan soo galeysay dhaqso aad u heshiin asxaabteeda qaaliga. Marka labadii xabana hoos way gaduudatay waan sii gadinayaa. Soo dhinaca kale ayaan sii dubayaa, sidaas ayaan u gadiyay sigane. Waan sii sugayaa wax yariis dhinaca hoos inay oo wax yariis ay bislaato. Kadibna waxaan sameynayaa wax yar oo saliid ayaan soo qaadayaa, kadibna geesaha ayaa sidaas ugu shubayaa. Haddaa rabtid asxaabta intaa gadinin ka hore saliidda si halka nooc hore aan tusiyay saliidda korkiisa ayaa mari kartaa. Haddaa rabine sidaan ayaad sameynaysaa qaybta labaad sida aan sameyno saliidda sidaas ayaa geesaha ugu shubaysaa, kadibna hoos si fiican ayay u gaduudanaysaa. Marka diyaar waaye dhinaca kale ayaan u gadiyay. Maasha Allah asxaabteeda qaaliga waa arkaysiin quraacada maanta sida uu qurxoon yahay. I hope inshallah adinkan inaad tijaabi doontiin recipe aad u sahalsan waa aad macaan badan aad ugu heli doontiin inshallah markaad tijaabisin dhadhankiisina aad ayuu macaan badan yahay. Inshallah asxaabteeda qaaliga I hope in adinkane wax ka faa'iideen maanta video-gan soo geliyay. Inshallah hadda recipe-gan ka heshay please like isaar si share gareysii walaalaha kale oo arkaan ka faa'iidaan. I hope inshallah in adinkan recipe-gan maanta oo sahalka aan sameeyay in adinkan ka faa'iideen oo inshallah adinkan tijaabi doontiin ayaan rajeynayaa. Marka asxaabteeda qaaliga video-geena quraacada maanta intaan ayuu ku eg yahay. Until then inshallah next video is maqli doonaa dhamaantiin qir badan aan dhaafay. As always, taxadiga xasuusta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.